waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, waxaan idin hayaa gabay ku saabsan hooyo macaan. Halyaayadii abwaanada Hadraawi iyo misaalkiisa hadday hooyo ka gabyeen, hindiseen suugaan sare, cimrigii markuu helay hambadii xusuusteen. Halla yaable ma laho hadalkaas sidaa mudan, hooyaa wax loo dhigo laga helin adduunyada. Balse aniga haada gabay heerkay ka joogeen kama haysto darajo, suugaan kama helan, weli waan hor leeyahay. Balse hooyaa iga mudan hadal iyo suugaan, wax kastoo la heli karo. Hooyoy waxaa tahay harkii aan ku nastayo, iga hoosi qorax kulul. Hooyoy waxaa tahay tii aan dhex hurdayo, marna aan ihakaasan. Hooyoy waxaa tahay hambadii macaanayd, marna aan hilmaamin. Hooyoy waxaa tahay tii hortay naftoo idil, habeenkaadii foolatay. Hooyoy waxaa tahay habeenkii midaan hordin, had iyo jeer yeegto ii hortay barraxada. Hooyoy waxaa tahay harta kulul midaan harsan, hawshayna awgeed. Hooyoy waxaa tahay tii iga hagoogtay markay hubka ridayeen, hoobiyo jiibkiyo hardankiyo dagaalada markay dadka huleeleen. Adi igama haadine hab intaad isiisaad hoygaad ila martay. Hooyoy haddaan jirin ubadkaan hagaagsan, halkan sooma gaareen. Hooyoy waxaa tahay tii xaqab tirayso habla iyo wiilalba, hagaajinta jirkooga mar waliba ku hagrano, hanaankooga toosisa. Alla hooyo sharafey, waxaan kuu hadiyeeyaa maba heli karaaye. Halkaad adigu mudan tahay waa hooygii jannada iyo haryihii macaanaa. Rabbi kuu hibeeyo, weligaa halkaa joog.